waxaan u sheegaynaa runtii dadweynaha reer Burco meel kasta ay joogaan in maanta xaruntan iyo xarunta kala ka nidaam halkan aan joogno maanta oo xaafadda Shafiila oo xaruntan ay ku xigto saldhigga Aadan Saleebaan waxa laga qaadan karaa xarfaha marka laga reebo MBC ama ma iyo waxa laga qaadanayaa iskuulka Candlelight ayaa laga qaadanayaa halkan waxa laga inta kale oo dhan laga qaadanaya halkan marka iminka laga bilaabo waa qaadan kartaan waxaanu sheegaynaa in dadkii in ay waxaan dadka u sheegaynaa inay kaaro ku bilaa lacag yihiin si fiican la idinku shaqeeyo inoo badan halkan oo sheegan Cabdicasiis iyo Cabdiraadir oo halkan oo nagu simo waday iyo nabada iyaguna halkan kala shaqeynayay Maxamed iyo maartay iyo Cabdirasaaq oo jooga hal diyaar baa leeyahay waxaan halkan uga mahadnaqaynaa Ahmed Salaman Ahmed Carab oo isagu ninka muwaadinka noogu deeqay gurigan aanu maanta ku bixinna kaarka runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Salaman Ahmed Carab oo nasiyay halkan oo waxba naga weydiin oo lacag naga weydiin oo noo fududeeyay in maartay kadib markii ay magaaladii ballaaratay runtii ay dadkii kaarka bateen in la kala fududeeyo oo meelo badan laga furo magaalada marka xaruntan maanta la furay iyo Candlelight-kaba waxaan mar labaad mahadnaqaynaa muwaadinkan nasiyay Salaman Ahmed Carab iyo ciidamada booliiska saldhigan Aadan Saleebaan Faarax nala shaqeeyay aad iyo aad baan runtii message baa la ii soo diray cidii message-kaasi ha timaado cidii aan helina halkan ha timaado ka qaata kaarka wixii ME aan ahayn MEC aan ahayn halkan ha yimaadeen Aadan Saleebaan meeshu xigto insha Allah ila hadda doona Cabdirasaaq goob ku taala xaafadda Shafiil oo dhow saldhigga Aadan Saleebaan marka waxaan halkan doonaynaa ka cadeeyo shaqaalaha haddaan nahay shaqaalaha Hargeysa ka yimid ee fududeynaya hawshan gobolka fududeynaya hawshan inaanu diyaar u nahay dadweynaha gobolka Togdheer inaanu si hufnaana aan ugu shaqeyno oo cadaalad ku jirto waxaan ugu baaqayaa in ay maadaama raggii maanta la furay ay raggu u doontaan labada goobada kala ah xaafaddan Shafiil saldhigga Aadan Saleebaan dhow goobtaas iyo goobta kale oo ku taala Candlelight-ka iskuulka Candlelight-ka halkaana way ka furan tahay marka waxaan dadweynaha gaar ahaan ragga u sheegayaa inay si